kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada aad daawad doontaan waxa kamida wararkii ugu dambeeyay dhaqaaqa Soomaaliland ay doonayso inay hubka uga dhigto jamhadaha hubaysan ee ku sugan deegaanada ka tirsan gobolada galbeedka Soomaaliland maxaa ka jira in beelaha Gadabuursi ay si adag u hor yimaadeen in ay hubka dhigaan xilli uu madmadow xoogan soo kala dhex galay wafdigii uu wasiir Cabdalle hogaaminayay iyo qaar kamid ah jamhadaha ku sugan deegaanada ka tirsan gobolka Selol kuwaas oo hub fara badan haysta xoog laga helay dawladda federaalka Soomaaliya oo wafdi culus u dirtay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya iyo kulamo culus oo haatan magaalada Addis Ababa uga socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo Itoobiya hadaba maxay yihiin kulamadaasi maxaa lagu faaqidayaa xog ku saabsan ayaa idinla wadaag doona kulamo culus oo xerada xalana uga socda madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland iyo mucaaradka Muqdisho iyadoona la filayo in dhawaan ay kulmaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnaha mucaaradka iyo mucaaradka oo diyaarsaday su'aalo adag oo ay kula doodayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogtii ugu dambeysay dagaalo culus oo ka dhacay deegaano hoosaga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose iyo ciidanka militariga Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland oo dilay xubnihii ugu badnaa oo ka tirsan maleeshiyada shabaab qodobadaas oo faahfaahinaya saaxiibayaal ku doogo doontaan barnaamijkan intuu hawada ku jiro balse daawad haddii aad ku cusub tahay muuqaalkan la gidhe kanaalkana subscribe dhe kana mid noqo saaxiibada halkan ku xiran si aad mar walba u heshid xogaha iyo wararka halkan aan ku soo gudbino aynu ku bilownay xogo kala duwan oo soo taraya ayaa ka soo baxaya dhaqdhaqaaqyada Soomaaliland ay doonayso inay hubka kaga dhigto jamhadaha hubaysan ee ku sugan deegaanada ka tirsan gobolada galbeedka Soomaaliland kana soo jeeda beelaha Ciise iyo Gadabuursi muddo dheerna ku dagaalamayay deegaanada ka tirsan galbeedka Soomaaliland halkaas oo ay dhowr jeer oo kala duwan colaad ku dhex martay taasi oo sababtay in dhibaato bini'aadanimo ay ka dhacdo deegaanadaasi wafdi hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdalle Sandheere oo muddooyinka ugu dambeeyay halkaasi ku sugnaa ayaa la soo warinayaa in qaarkood jamhadaha uu madmadow xoogan soo kala dhex galay kadib markii ay diideen inay hubka dhigaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdalle Sandheere iyo wafdiga uu hogaaminayay ayaa la soo wariyay in ay booqdeen deegaanka Fiq Aadan oo ka tirsan gobolka Selol halkaas oo fariisin ah ciidamo fara badan oo hubaysan kuwaas oo u dhashay beelaha Gadabuursi qaar ka mid ah jamhadaha ayaa waxa la sheegay inay si kulul isku afdhaafeen wasiirka isla markaana ay ku sigteen dhexdooda inay dagaalamaan kadib markii ay ku eedeeyeen in wasiirku uusan nabad dhab ka shaqaynaynin waxay markaasi xuseen in wasiirku uu dalbaday isagoo aan waxba kaba hadlin in ay qasab ku siixaan warqado u watay kuwaas oo ay ku qornaayeen inay hubka dhigaan isla markaana ay qaataan nabadda hasaatee waxay sheegeen in ay lala gelin wax wada hadal oo ku saabsan mustaqbalka deegaankooda waxay sidoo kale xuseen in markaasi iyagu aysan duulaan ahayn balse lagu soo duulay isla markaana ay nabad diyaar u yihiin hasaatee iyagu ay yihiin dadka markaasi difaacaya waa sida hadalka u dhigeen waxay madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ugu baaqeen in uu ka bedelo ninkan maadaama ay sheegeen in dhowr jeer oo kala duwan socdaalo uu ku yimid galbeedka Soomaaliland oo doonayay inuu ku xalliyo nabadda ay markaasi ku soo dhamaadeen fashil si kasabaatay wafdigii wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdalle Sandheere oo welinayo wasiirka gaashaandhigga taliyaha ama ammaanduulaha guud ee ciidanka Soomaaliland ayaa la soo warinayay in wali ay ku sugan yihiin deegaanada iyagoona doonaya in dadka ku nool deegaanadaasi la heshiisiyo waxay markaasi wadeen booqashooyin kala duwan ay ku sameeyeen jamhadaha hubaysan hasaatee xukuumadda Cirro ilaa hadda amarkeedu kama uusan dhaqan galin deegaanadaasi mana muuqato tallaabo ay hubka uga qaadayso jamhadaha faraha badan ee ku sugan deegaanada ka tirsan gobolada galbeedka Soomaaliland dhinaca ka xaalad nololeed ugu xumeed ayaa laga soo warinayaa deegaanada ka tirsan degmada Saylac iyo sidoo kale Lughaya halkaas oo dhawaan ay ka dhaceen colaado u dhaxeeyay dadka deegaanka iyadoona markaasi wararka halkaasi naga soo gaaraya xaqiijinayaan in dad badan oo barakacay ay xaalado nololeed ku wajahayaan deegaano kala duwan oo ka tirsan isla gobolkaasi xukuumadda Soomaaliland ayaa u muuqatay inay wali xal dhaba u leedahay colaadda ka taagan deegaanada ka tirsan galbeedka Soomaaliland iyadoona marba mar ka sii dambeysay xiisadu ay soo taraysay daawadayaal qodobo kale xasaasi ayaa inoo soo socda balse daawada haddii aad ku cusub tahay muuqaalka like dhig kanaalkana subscribe dhig kana mid noqo saaxiibada halkan ku xiran si aad mar walba u heshid xogaha iyo wararka halkan aan ku soo gudbino haddii aad hore noola joogtayna ku mahadsanid daawada la jaan qaato halkan aan ku soo gudbino
dowladda federaalka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa la soo warinayaa in kulamo culus ay ku dhex mareen magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya kulamadaas oo diiradda lagu saareeyay xaaladaha guud ee Geeska Afrika iyo xiisadaha culus ee isdaba-maraya wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ay dowladda dhexe ee Soomaaliya u dirtay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya halkaas oo uga qayb galay shirweyne balse shirweynahaasi inta uusan ka qayb galin waxa la sheegay in kulamo gaar ah oo la qaatay مسؤولين يحملنا كتيرسن مركزي دولة إثيوبيا wasiir Cabdisalaan ayaa ka qayb galay shir madaxeedka 39 ee Midowga Afrika waxaana lagu soo dhaweeyay Addis Ababa iyadoona sidoo kale ay kulamo muhiim ah oo daacadya magaalada Addis Ababa ku dhex mareen wafdiga dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka socda Itoobiya shirkaan waa mid xasaasi ah waxa diiradda lagu saaray xaaladii ugu dambeeyay ee gobolka iyadoona Soomaaliya ay meesha la tagi doonto doodeeda ku aadan xaaladaha ay wajahayso ugu horeyso arrimaha diblomaasiyadeed gaar ahaan xadgudubka Israa'iil ee madax banaanida Soomaaliya kadib aqoonsiga ay Somaliland sidaan xogaa ku helnay dowladda Soomaaliya waxay doonaysaa in Midowga Afrika dhammaan uu si toos ah u cambaareeyo markaasi go'aanka Israa'iil ay ku aqoonsatay Somaliland isla markaana ay qaataan dhammaan golaha ammaanka ee Midowga Afrika go'aan guud oo looga hortagayo dhaqdhaqaaqyadaasi horey Midowga Afrika ayaa isgarab istaag buuxa u fidiyay dowladda federaalka Soomaaliya iyagoona meel adag ka istaagay go'aanka Israa'iil ay ku xadgudubka kula kacday markaasi madax banaanida Soomaaliya si kastaba qaar ka mid ah dowladaha dariska la Soomaaliya ee ka tirsan Midowga Afrika ayaa horay markaasi u diiday inay cambaareeyaan go'aanka Israa'iil ku aqoonsatay Somaliland waxaana dalalkaasi ka mid ah Kenya iyo Ethiopia oo iyagu aan markaasi si toos ah u cambaareen go'aanka Israa'iil ay ku aqoonsatay Somaliland ilaa xilligan ka aamusan Ethiopia oo xiriir aad u dhow diblomaasiyad la Soomaaliya ilaa hadda kaba hadlin go'aanka ay Somaliland ictiraaf uga heshay Israa'iil iyadoona sheegtay in Soomaaliya iyo Israa'iil ba ay xiriir wanaagsan la leedahay Ethiopia isla markaana danteeda ay ka eeganayso wararka xogaya TV ayaa daawanaysan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa la soo warinayaa inay kulan degdeg ah ku leeyihiin xarada Xalane ee magaalada Muqdisho kaasi oo looga hadlayo xaaladda cakiran ee dalka Soomaaliya shirkaan waa mid xasaasi ah waxa goob joog ah madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Siciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Oobe iyo sidoo kale ra'iisul wasaareyaal hore oo ugu horeeyaan Xasan Cali Khayre Maxamed Xuseen Roble iyo xubno kale oo ka mid ah xogweynta siyaasadeed ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku dhow halka uu ka socdo shirkan oo ku taala xirada Xalane ayaa diiradda waxa ay sheegeen in lagu saarayo diyaar garowga shirka golaha mustaqbalka iyo Villa Soomaaliya oo lagu wado inuu maanta ka furmo gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ajandaha shirkan u dhaxeeya Axmed Oobe Deni iyo xubnaha mucaaradka Muqdisho ayaa diiradda lagu saaraya markaasi go'aamo adag oo ay hordhigayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuwaas oo ay ugu horeeyeen yihiin dooda ku saabsan sida ay uga soo horjeedaan wax ka bedelka dastuurka iyo doorashada qof iyo codka oo ay Villa Soomaaliya gadaal ka riixayso waxay sidoo kale xoguhu sheegayaan in dhinacyadu ay isku raacayaan go'aan midaysan oo ay doonayaan inay la hortagaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnaha beesha caalamka si ay ugu guuleystaan doodooda in dalka laga qabto doorasho dadban isla markaana la joojiyo wax ka bedelka dastuurka iyo dhammaan doorashooyinka Xasan Sheekh Maxamuud 2 sano ilaa 3 sano u dambeysay uu ka shaqeynayay waxay sidoo kale markaasi xuseen in Axmed Oobe iyo Siciid Deni ay si gaar ah diiradda u saarayaan markaasi go'aanka ay doonayaan in ay ku dhisaan hal musharax si uu la tartamo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo aan la heshiinin arintaasi si kastaba saacadaha soo aadan waxa la filayaa in ay hor fariisaan Xasan Sheekh Maxamuud Siciid Deni iyo Axmed Oobe kuwaas oo uu dagaal adag soo dhexmaray 2 sano ilaa 3 sano u dambeysay kaasi oo xitaa sababay dagaal toos ah iyo khilaafaad siyaasadeed oo qaarkood dhinacyada ay isku jareen maxkamado dambiyana markaasi dusha isu saareen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa shalay si la yaab leh uga soo degay magaalada Muqdisho kadib toddobaadyo uu markaasi murun ka taagnaa socdaalkooda iyadoona dib dhowr jeer kala duwan loo celiyay safar ay ku imaanayeen magaalada Muqdisho waxa la filayaa in si weyn isha looga wada hayaa shirka ka dhacaya xirada Xalane ee dhexmaraya Xasan Sheekh Maxamuud Siciid Deni iyo Axmed Oobe iyadoona Deni iyo Axmed Oobe ay diideen inay tagaan xarunta Villa Soomaaliya shirkan dadka ka faalooda arrimaan waxay sheegayaan inuu sababi karo ismaran waa iyo sidoo kale in dhinacyadu ay kala tagaan inkastoo ay la kulmayaan cadaasyo xooggan oo kaga imaanaya dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya kuwaas oo doonaya inay heshiiyaan siyaasiyiinta Soomaalida hase ahaatee waxa la soo warinayaa in dhinacyada uusan wax tanaasul ka muuqan isla markaana mid kasta uu go'aankiisa ku dhagan yahay ugu dambeyntiina ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa jab culus gaarsiiyay kooxaha argaxiso kadib dagaalo culus oo ka dhacay degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose
dowladda federaalka Soomaaliya waxay guulo culus ka sheegatay dagaal culus oo ka dhacay duleedka degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose kaas oo si wadajir u qaadeen ciidanka Kumaandooska Danab iyo sidoo kale ciidanka gaarka ah Jubbaland wasaaradda difaaca Soomaaliya ayaa shaacisay in weerarkan oo markaasi isxigxigay uu ahaa dagaal toos oo lagu dilay in ka badan 14 dhaqaqabe laguna dhaawacay kuwa kale intaasi ka sii badan ciidanka gaarka ah Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada amniga dowlad goboleedka Jubbaland waxay fuliyeen howlgal qorsheysan oo lagu beegsaday kooxaha argagixisay ee ku sugnaa deegaano hoos yimaada magaalada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose halkaas oo lagu dilay xubno fara badan ayay sheegtay dowladda dhexe ee Soomaaliya sidoo kale waxay dowladda Soomaaliya sheegtay in ay sii wadi doonto howlgallada ka dhanka kooxaha argagixiso inta laga ciribtirayo deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo kooxdu ku awood badan tahay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ay sheegashadeena ku soo aadaysa xilli maalmihii ugu dambeeyay dagaal culus ay ka dhacayeen gobolka Jubbada Hoose kaas oo u dhaxeeyay ciidanka Jubbaland iyo kuwa dowladdu iskarabsanaya iyo kooxaha argagixiso dhawaan deegaanka Kudhaa ee jasiirada ka waxa ka dhacay dagaalkii ugu cuslaa kaas oo lagu dilay ku dhawaad 200 oo ka tirsan kooxaha argagixiso sidoo kalena markaasi lagu laayay xubno fara badan hoob fara badan looga gubay kooxaha argagixiso iyadoona dowladda Soomaaliya ay weerarkaasi guulo ka sheegatay dhinaca kale kooxaha argagixiso waxa iyaguna filmaan iyo sheegashooyin ay soo saareen ku xuseen in weerarka qaybtii hore ee Kudhaa ayagu ku guuleysteen isla markaana ay ciidamo badan dileen sidoo kale deegaankaasi ay gacanta ku dhigeen gobolka Jubbada Hoose wuxuu ka mid yahay meelaha ay ku xoogan yihiin kooxaha argagixiso iyadoona xukuumadda Axmedoobe ay ka wajahayso arrintaasi dhaliil xoogan